الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta oo bisha saddexaad ay tahay 7/2021 waxaan joognaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan gaar ahaan masaajidkii dhismihiisu inoo socday ee masjidkii Nuurul Bayaan aasaaskii buu marahayaa dhismihiisu waa bilow waana masjid jaamic ah oo horay aan saan u sheegnay dadkii qaadi waayay qofku markuu rabo inuu wax la baxo wuxuu jecel yahay inuu kula baxo meel camiran hadday tahay dukaanka adduunyada uu ka furanayo wuxuu jecel yahay suuq camiran hadday tahay waxa weeyaan amal aakhiro uu sameynayana wuxuu jecel yahay meel camiran oo shaqaynaysa masjid jaamica oo la dumiyay oo laba dabaq laga dhisayo oo dadkii qaadi waayay meesha wax ku bixin lahayd meesha ugu munaasabsan weey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofku markuu dhinto wax amalkiisu waa go'aya saddex marka laga reebo إلا من صدقة جارية صدقة جارية هو صعونيسة ومساجد يا مدارستا مدرسة waxa weeyaan labada dabaq aad arkaysaan oo masaajidka ku dhagan dad baa dhisay oo quraanka lagu barto oo la baxay oo waqafta ah masjidkaana madrasada ayuu daris leeyahay asna waa masjid waqaf ah aw cilmi yuntafacu bih ama qofkii haduu ka tagay cilmi lagu intifaacayo oo shaqaynayo soconayo aw walad salih yad'u lahu ama walad baari ah oo waxa weeyaan u ducaynaya saddexdoodaas waxa ka heli kartaa masaajidku waa meeshii sadaqada jaariyada ahayd ku darso waa meeshii cilmiga lagu intifaac leh oo lagu nacfinayo laga baranayo waa meeshii waladka baariga ah ee ku ducaynaya oo ka soo baxayay weey masaajidda la dhisay way fara badan yihiin kuwa aan hore u dhisnay kuwa hadda aan ka bacdi insha Allah hadii Ilaahay in gaarsiyo aan dhisi doono masjidkan marka insha Allah dad badan baa wax ku darsaday naftooda ugu dareen waalidkood bay ugu dareen waxaan leenahay Ilaahay haydin aqbalo Ilaahay haydin aqbalo Ilaahay haydin aqbalo sadaqa jaariyo aan goyn Allah in kaga dhigo kuwa dambe oo waxa weeyaan wali sugahaya meel ay ku darsadaan waxaan leenahay ku darsada khayrkaana ka qayb qaata ilmihiina naftiina waalidkiin intaba waxa weeyaan waa mashruuc khayri ah dadka in lagu booriyo inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidda iyo madaarista ceelasha la qodahayo wadooyinka la samaynayo masaalixda caamka ah waa in loo istaagaa dadkii waxa weeyaan khayrka jecelina ku soo biiraan oo kaga qayb qaataan saan u sheegnay ba lambarka masaajidku uu leeyahay oo aad kala soo xiriiri kartaa waxa weeyaan fura 3 3 9 9 4 waa EFC-ga lacagaha loogu diri karo haday dibadda ay tahayna furaha ayaad ka hormarinaysaa 252 ayaad ka hor 252 6 hal baa ka hormarinaysaa waad garanaysaa shaashadahana waxa la saaray waxa weeyaan ka muuqanaya akoonnada masaajidku ku leeyahay xawaaladaha iyo bangiyada ka jira wadanka oo lacagaha loogu shubi karo sidoo kale dahabka uu leeyahay kulligoodna shaashada ka arkaysaa aan ka qayb qaadana walaalayaal جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد.